Bismillahir Rahmanir Rahim waa Somali Star Online Training casharadii faraha badnaa hore soo qaadanay waxaan inoo bilaabanayaa buugii kale oo ahaa Development Skills ida casharo fara badan ardayda ay hore u soo arkeen halkaas la sii mariyaa waana muhiim jiddan ida casharadii step ka aan hore u soo qaadanay maanta waxaan arki doonaa inaan wax yar warbixin idin ka siiyo buugga soo soconaya si tafsiilintiisa u sii ogaataan muxuu macnuu leeyahay buugga soo socda waa buuggii saddexaad oo ka tirsan silsilada New Concept English muxuu kaga duwan yahay buuggii hore grammatigiisa badnaa kanna wuxuu kaga duwan yahay buuggani vocabulary-giisa badan ereyada ku jira badan aad iyo aad u badan marka New Concept English Developing Skills and Integrated Course for Intermediate Students aragtayna marjicaan la soo xiriiri lahayn waana injineer Maxamed Barre ya somalistarabad.com www.somalistaronline.blogspot.com laysawankiisa muxuu ka bilaabanayaa buuggani Buma at large ya ida cashar fara badan ardayda ay soo arkeen halkaas laga sii wadayaa waana muhiim jiddan taasi note-kan ardayda lagu talagalay oo buuggii hore u soo dhigtay laysawan uu soo bilaabanayaa waana inaad diyaar u sii noqotaan buugani wuxuu leeyahay 4 cashir buuggii hore markaa isku dartaan 4 cashir oo buuggii hore ah ba halkiisa cashir leeg eray walba English kaaga hor imaan kara buuggan waa ku arkaysaa waana magaciisa waa Developing Skills and Integrated Course for Intermediate Students director marjic la soo xiriiri lahaa waana injineer Maxamed Barre oo casharo fara badan aan ka soo aragnay somalistarabad.com www.somalistaronline.blogspot.com waxaan ka helnaa video iyo waxaan ka helnaa ardayda dhigata magacyadooda Buma at large waxaa ka bilaaban doona buugga saddexaad iyadoo ardaydan jecel Englishka hore waxaan ugu baranay buuggii labaad oo si fiican aan u soo aqrinay una soo tafsiirin fiican aan soo saarnay turjumaad fiican buuggii kasii horeeyayna hore aan u diyaarinay oo ahaa Fasting Fast iyadoo casharo kala duwan hore loo soo bartay halkee baa la sii marayaa buuggii saddexaad markuu dhamaado maxay ardayda heli karaan oo kale haddii key structure iyo special difficulties ay bartaan waxay heli karaan hadhowdii waxay geli karaan imtixaanada jaamacadaha waaweyn sababtoo ah saddexdan buug wuxuu kobcinayaa maskaxda arday walba ardayda markaa maxay isweydiinayaan su-aasha kaliya isweydiinayaan waxay tahay Englishka habka loo dhigto ayaa kala duwan marka Englishka buug ka dhigataa fiican buug markaa dhameyso waxbaa soo kordhayo buugga markaa dhameyso laakiin haddii ka waran brevad iyo sidaan ku ogeyn Soomaaliya oo kale ama sida Soomaaliya looga dhigto kale ma aha taxana ma aha Englishka waa inuu taxana ahaadaa tajriidi ahaada uu isku xigxigaa cashirka soo qaadatay maanta waa inuu biri cashirka ka sii adag yahay laakiin haddii uu isku wada mid noqdo wax macna ma keeni karo qofkana maskaxdiisa hore uma korayso waa sida loo barto luqadda Englishka habsami socodka lagu bartana waa sidaas hamoodin si kale in lagu barto buugaagta kala duwan waa inay buugaagta kala sareeyaan buugwan qofka markuu dhameeyo waa inuu buug kala qaataa buug 3 u gudbaa saas u qaataa buugaagta taxanayaasha ahna muxuu ka faa'iidi karaa ereyga hadda uu soo dhaafay erey ka adag baa mar walba u imaanayo saas uu ku baran karaa laakiin haddii sida conversationada la dhigo kale Soomaaliya ku ogeyn sida Muqdisho iyo Soomaalida oo dhanba conversationada la dhigay haddana marka la dhigay conversationadii kuwa kala ka duwan marka wax macna ama jugjug meesha joog bay Soomaalidu tiraahdaa waa jugjug meesha joog cashir meel uu ka socdo email uu socdaan la aqoon way cashiradaas muhiim jiddan ma aha waxaa muhiim jiddan ah buugag saxsan la dhigo weeye oo buug ku xigo sida ayaa lagu fahmi karaa Englishka marwaadaan idinku celinayaa waa inuu taxana ahaada tajriidi ahaada cashir ka dambeeyo inuu kaga adkaada saa ayaa wax ku baran kartaa haddii aad tahay arday sidaa darteed markaa buugaagti kala duwaneed buug saddexaad baan usoo gudubnay Developing Skills waa buugga saddexaad New Concept English buuna ka tirsan yahay silsilada New Concept English okay Developing Skills and Integrated Course for Intermediate Students baa la yiraahdaa waa muhiim jiddan inta inaad fahantid waa intermediate waa ardayda dhexdhexaadka oo si fiican wax u taqaan way macnaha buuggan way kasii faa'iideysan doonaan waayo ardaygii buuggii hore aan soo daawan kan wax uu ka faa'iideeyaa ma jiraan sidaa darteed marka waa muhiim jiddan Somali Star Online Training inaan la soconno casharo kala duwan oo gurigaaga joogo ku qaadan karo wixii macluumaad oo dheeriya waxaan la soo xiriirinaynaa direct number ida casharo fara badan hore aan u soo qaadanay sidaa darteed marka casharadii taxanaha ahaa Somali Star Online Training buug saddexaad baa loo soo gudbay buuggan ardayga doonaya key structure-diisa inuu ka faa'iideysto iyo buuggan exercise-kiisa haddii aad si gaar ah rabtid inaad u heshid wixii macluumaad oo dheeriya waxaa la soo xiriiri doontaa direct number si kale kuma heli kartid exercise-yadiisii iyo key structure-kiisa muxuu yahay hadaa isweydiisaan waa grammar bontiga cashir walba aan akrinayo ku jiro
special difficulties ka muxuu yahay special difficulties waa mashaakilka gaarka cashirka uu yeelan karo letter writing baa jira hababka waraaqaha loo qoro waa idin sheegi doonaa 4 qaybood baa loo kala qoraa qaar businesska soo galayo oo memogi baa soo galay invoice-yadii qayb waxay noqon karaan waraaqahaas dadka madaxda ay isu diraan oo looga hadlayo relationshipka iyo caalamiga ah qayb waxay noqon karaan dadka isjecel oo kale waraaqaha isu qoraan gacalka ah kuwaas si qaas ayagana loo qoraa oo hab loo qoray leeyihiin waraaqaha qaab kale loo qoray waxay leeyihiin dadka isku familiga ama asxaabta say u qortaan ayagana waa si gaar ah waa muhiim jiddan letter writing baa la dhahaa luqadda Englishka letter writing waa very important inuu ardayga yaqaano ardayga waa inuu yaqaanaa pronunciation-kii waa inuu letter writing wax ka yaqaanaa waa inuu grammar bondiga soo saari karaa cashir walba waa inuu soo saari karaa exercise-kiisii waa inuu exercise-kii waa inuu ka shaqayn karaa ardayga waa inuu garan karaa ku dhawaaqista siday tahay pronunciation-ka iyo sida loogu dhawaaqay waa muhiim jiddan intaa inuu isla fahmi karo sidaa darteed markaa cashirada Englishka uu ku guuleysan doonaa ardayga noocaas oo kale ah wuuna ka faa'iidi karaa waa Somali Star online training koorsooyinkii kala duwanaa English language-ka ahaa oo taxanaha ahaa oo online-ka ahaa sidaa darteed wixii macluumaad oo dheeri waxaan la soo xiriiri doonaa direct number cashir maanta idin aqrinayo laakiin waxaa idin soo hordhac idin kaga dhigay buugga soo socdo magaciisa oo ahaa developing skills waa step by step cashiro fara badan baan horey soo aragnay developing skills and integrated course for intermediate students direct number waa marjac aan la soo xiriiri lahayn waana engineer maxamed axmed barre oo loo yaqaano maxamed England somalistarab@yahoo.com waan la soo xiriiri doonaa www.somalistaronline.blogspot.com laysamo wuxuu ka bilaaban doonaa Puma at large idoo cashiro fara badan ardayda ay soo qaateen waxaan nooga barateen cashiro mihigaan ah oo taxana ah oo sida roobka u daayo waana very important sidaa darteed fi amaan Allah wassalaamu calaykum waraxmatullahi